goobaha la isugu yimaado gaar ahaan dadka xoolo dhaqatada ay isugu yimaadaan iyo dadweynaha kale ayaa waxay kaga hadleen qiimaha geel uu iska leeyahay waxayna si weyn falanqeyn ugu sameeyeen amarka dowladda Australia ay ku leynayso geela waxayna si weyn uga hadleen geela ay leynayso dowladda Australia qaar ka mid ah geelada magaalada Laascaanood oo la hadlay ayaa noo sheegay inay dareenkoodu uu yahay jacaylka geela u qabaan iyo qiimaha waqtooda ku leeyahay leyntaasi ay tahay mid ay aad uga xun yihiin dhammaan ummadda islaamka iyo ummadda caalamka ku nool oo dhan waxaanu aad uga xunnahay uga tiiraanyansanahay geela 10 kun ee la yidhi Australia lagu leynaya iminkana dilkiisii iyo dagaalkiisii uu socdo halka aad marba ka daawanayso hal caani dareerayaan iyo awrkeed oobida tuuro iyo xabad lagu dhajinayo sumaysan aad baanu arrinta uga xunnahay Soomaaliduna geeli meel ay u gasho baylaad oo dagaal baanu ugu jiraa basaan u ururin lahayn abaar baa naga dhameysay marka waxa weeye arrinta aad baan uga xunnahay beesha caalamkana waxaanu ka codsanaynaa in arrinta laga hortago oo laga dagaalamo haddii kale dadka xunxuna uska gahay geela leynaya aan waxba u garanayn ee la leeyahay micnii dhaqan islaamna ma dhaqan gaalana ma waxani in xoolaha la laayo xawayaanka la laayo oo waanu rararnaa oo hilibkiisaanu cunnaa oo 19 nooc baanu isticmaalnaa markaanu isdilana waxaan isku dilaa geel haddaanu nahay Soomaali way waa dhaqankayaga aad baan uga gilgilanaa isagaan ku kala bogsagnaa oo kiiska ku bixinaa oo wax walba ku bixinaa aanu lahay dad muslina geelaanu dhaqanaa waa maalaa waa rarannaa waa qalanaa waa iibsanaa sidaanu doonanu isticmaalnaa annaga ilaahay baa abuurtay raxmadda u shuba awsku cunaa naqu cunaa biyuhu cabbaa waxba nama yeelo barwaaqaanu ka qaadnay bashashaanu ka qaadnay liibaan baanu ka qaadnay marka aad iyo aad baan uga xunnahay arrintaas dowladdaas Australia cawaanka ay ku hadlayso oo adduunka ka dhaadhicinayso marka annagu arrinta aad baan uga xunnahay waa ka soo horjeednaa ma ogolin salaamu calaykum geelu qiimuhu wuxuu u leeyahay qiimo aad u fara badan hadda awrtaas waa 30 milyan yaa naga siisanaya xagaanu ka helaynaa yaa sidaasaanu iibsanaa u qalanaa ku dhaqanaa oo runtii aad igu noqotay wax la yaab leh iyo naxdin waanan habeenadan ka baseexanba anigu horta taariikh ahaan waxa ay nin geel leh markii horena geel jira ku barbaaray aad ula yaabay niman la yaado Australia oo gaala ah oo cawaana oo waxa weeye geeli leynaysa oo diyaarada ku duqeynaysa oo la leeyahay nin walba intuu u dilo buu lacagteeda leeyahay baa waxay igu noqotay arrin aad u yaab badan oo u naxdin badan waxa isu keeni weyday anigoo inta geel raadinaya waxaan ka codsan lahaa dawladda Soomaaliya in ay codsi u dirto dawladda Australia maraakiibta qarashkeedana la bixiyo geela halka lagu leynayo lagu diyaaradu ku duqeynayana la soo raro sidii ay nooga faa'iideysano oo waartay qiimo badan inoogu fadhiyo oo maartay wuxuu ahaa wax aad inoogu qiimo badan oo waxa weeye wax kasto aad doonayso inaad qof ku samarsiiso ama aad ku sharafto waa geel wax kasto oo aad qof aad jeceshahay aad ku soortane waa cunto geel weey marka ama caanaha ahaato ama cad ha ahaato bal xuquuqda eeyga way u doodaa oo ka bisada way u doodaa kii ilaahay karaameeyay waxa weeye mag iyo wax walba lagu kala bixin jiray ee dhiig rag lagaga samri jirayne way leynayaan diyaarada ku guud ahaan gobolka Sool ayaa kamid ah goobaha sida weyn geela looga dhaqdo iyadoo dadka reer guuraagu ay qadarin fara badan oo hayaan ayna kala mid yihiin dadka Soomaaliyeed.